بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kusoo guda jirnay casharadeenii aan soo bilownay oo ahaa amenorrhea marka aan soo gaarnay casharka ugu dambeeyay aan kusoo gabagabay doono waxaan kasoo hadalnay amenorrhea 1 iyo 2 iyo 3 maanta waxaan soo gabagabay doonaa 4 1ka waxaan usoo hadalnay si guud ayaan usoo hadalnay what's the amenorrhea classification-keeda ayaan kasoo hadalnay kadib waxaan bilownay primary amenorrhea waxaan usoo kala qaybinay qaybta koowaad aan u dhahnay false amenorrhea ama cryptomenorrhea waxaan uga hadalnay lecture-kaas koowaad aan soo dhameynay lecture 2 ay maanay waxaan ka hadalnay true amenorrhea ayaan ilaa ovarian geenay kadib ovarian kasoo bilownay lecture 3 waxaan ku dhameynay primary amenorrhea management-keeda waxaan ayaan isku dhameynay lecture 4 waxaan uga hadli doonaa secondary mataqaana amenorrhea ayaan uga hadli doonaa maanta doo ilaahay yiraahdo secondary amenorrhea ayadana hadii uu dawada etiology intii ka dhaxbayso intii la soo dhaxbareegaysa bis afartii compartment oo ah inuu disorder ka jiro outflow tract waxa loo yaqaano uterine target organ oo arki doono uterus-ka maqan oo waxa dhici karo hysterectomy la sameeyo ama outflow-ga xirmay tract waxa dhaca loo yaqaan Asherman syndrome yani hooyada fiican ayaa waxaan u sameynaa curitaaj ama soo xaaqa Asherman syndrome marka waxa dhacay injury waxa gaaray damada halka marka injury gaar uu isku dhigay Asherman syndrome waxa isku dhigay uterine cavity isku dhigay marka waxa dhacay outflow tract inay soo baxo secondary secondary amar waxa waaye hooyada dhiig u joogay ayaa ka istaagay laakiin primary outflow waxa dhahnay la waayaan dhahnay laba mid in uu xirnaado conjugal ahaan sama ama inuu uterus ku maqado conjugal kan laakiin ma conjugal secondary waa qofkan ama infection ku dhacay ama curitaaj injury gaaray meesha isku dhagay ama hysterectomy loo sameeyo uterus laga bixiyo waa arki doona ovariga waxaan ka soo karo waxa ovariga kii ruuxa wax conjugal kan laakiin acquired waa yani ovariga xilli hore dhamaado loo yaqaan premature ovarian syndrome xilli hore dhamaado xilli hore dhamaado ma ayaa ukumiga ka dhamaanay waxa loo yaqaan premature wali waa dib wax xabada soo xirxay kartaa wala maybe waxa inuu disorder ka jiro ovariga waxa ugu muhiimsan leedahay premature ovarian failure sama ama qofkii loo sameeyo ovarectomy loo sameeyo ama ha isticmaal medical ama ha isticmaal surgical in ovarectomy ovary shaqada gabtay ama medical ahaan ay la siinaa ama radiation ahaan ama oo inaan surgical ahaan uga baxsho ovariga sama laakiin markii conjugal primary waxa ay conjugal ay Turner syndrome iyo testicular feminization oo ovariga ka maqlaanay midkaan laakiin wax kuwaarada xoog saaraysa meesha kadib deegaan sidoo kale ayaan waxa soo waxyaabahan oo inuu dhaco waxa loo yaqaan Sheehan syndrome oo ayadana fiicnaan dhiig baxa ku dhacay hooyadii markuu dhiig bax ku baxay kadib deegaan wuxuu ku noqonaa necrosis ku dhacay kadib deegaan ayaa shaqadiisa istaajinaya waxa loo yaqaan Sheehan syndrome waa secondary soo ah amenorrhea sabab kadib deegaan shaqadiisa maxaa dhacay waxa loo yaqaan FSH iyo NH loo yaqaan soo marka sidoo kale dhici karo tumor in kasoo baxdo kadib deegaan oo taas oo ah secretory oo loo yaqaan prolactinoma oo ah waxa ziyada prolactin level-kii ayadana waxa dhacay markaas amenorrhea mid meesha doctor هي hypothalamus-ki yani waxa dhici karo qofkan inuu mataqaana drugs isticmaalo drugs oo hoos u dhigaya leenahay dopamine-kina waxa waaye waxay mas'uul ka yahay in prolactin-ka joojiso waxay prolactin inhibitor factor waatan kasoo hadlaynay prolactin dopamine waa wuxuu shaqadiisa tahay hypothalamus loo soo daayo waxay samaysaa prolactin inhibitor factor ay prolactin joojiya marka qofku ay drug isticmaalo drugs-ka psychosis loo isticmaalo psychiatriga ani drug saameynaya marka prolactin-ka saameyn soo dopamine ku xor ziyada marka hyperprolactinemia oo prolactin oo kiciga hyperprolactinemia inay ka prolactin ku ay keenaysa stress oo kale waxa soo waxay keenayaan ayadana ama exercise ay sameeyaan hip exercise gabadha waxay ku biirta qolada oo kubadda in aalamiinta sababa ayuu xalin waxa dhici kara marka secondary afartan kala bixis yani inuu noqdo ama mushkil jirto uterus-ki iyo outflow-gi oo mushkil ka jirto wax loo yaqaan ovary ama pituitary mid fahday kadib weydiyo qaabkaas waa leedahay wax dhib badan ma waxa jira markii other causes kala jiro oo caan oo ay rabaan xoog saarto oo markii la afartaas oo xoog yar ka baxsan oo ah pregnancy kadib weydiyo marist waxa leedahay pregnancy waa the most common cause of secondary amenorrhea you can best answer sax ya hadii aad lagu dhaho the pregnancy-ga was the most common cause of secondary amenorrhea maxay waa physiological sama hadii lagu dhaho the pregnancy waa physiological mataqaana amenorrhea waxa normal yes ah hadii lagu dhaho the most common cause secondary waa sax oo ayado fiican oo dhac waxa dhiiga ka istaagay 3 4 doctor waxa dhiiga aga maqan 3 4 imaan waxa loo diray waxa la HCG yani ala pregnant ii samay hooyo HCG wuxuu noqonaa positive oo ura leedahay sorry dhiiga marka istaagay waa ura imaaday ma fahamtay marka waxa leenahay pregnancy wuxuu joojinaysaa cycle marka dhiiga pregnancy waa the most common cause of secondary amenorrhea hooyada dhiiga u jooga dhiiga ka istaagay waxa ugu horeeya laga darbaa arki doon xus faxsiga ugu horeeya ama baaritaanka ugu horeeya ama investigation ugu horeeya waxa waaye intuu isku lagu sameeyo pregnancy hypothyroidism waxayna waa very important because oo sababayo mataqaana ayadana sababo amenorrhea taas waa arrin hooyo ka caawin secondary amenorrhea number 2 waxaan ka fiirinaa pregnant test kadib waxaan ka fiirinaa thyroid in thyroid-ka laga fiiriyo thyroid sama stimulating hormone la fiiriyo maxay la thyroid-ka haduu hypothyroidism yahay waxaan dhahnay
wuxuu sababaa in hypothyroidism hyperprolactinemia hyperprolactinemia yani waxay keenaysaa prolactin inuu kaco hypothyroidism waxaa la socda mar walba prolactin inuu kaco prolactin uu kacana waxaa leenahay waxaa la soconaya amenorrhea iyo infertility hyperprolactinemia laba mid a keeni karto inuu hypothalamuska ama inuu pituitary normal hypothalamuski waxaan dhahnay ani drug la isticmaalo oo dopamine hoos u dhigayo ama inuu connectionki go-o u dhexeeya hypothalamuska iyo pituitary gland markuu connection go-o maxaa dhacaa ilaan waxaan dhahnay hypothalamuska waxay soo deysaa prolactin inhibitor prolactinku hypothalamuska uu ku taageen haddii markii connectionkii la waa u dhexeeya hypothalamuska iyo pituitary gland maxaa dhacaya prolactin uu ziyaada mi fahanteen hormoonada kale hoos u dhacaya ay hormoon hoos u dhaca maxaa yeelay hypothalamuska waxay amar kusoo siisaa pituitary gland waxay amar ku siinaysaa in la soo daayo hormoonaadka dhan mi fahantay release hormone waa release hormone mi fahantay markii laga reebo prolactin waa inhibitor way joojisaa yani calaaqada ka dhexeyso hypothalamuska iyo pituitary waxaa leenahay waa calaaqa ah soo deyn ah thyroid release hormone adrenocorticotropic release hormone even gonadotropin release hormone waxay soo dhaxla release hormone ayuu soo hypothalamus soo daaya wuxuu amar ku siiya pituitary markii laga reebo prolactin wuxuu soo deynaa leenahay hypothalamuska prolactin inhibitor wuxuu leeyahay prolactin hal joojin kara qaba marka haddaan weyna hypothalamuska iyo pituitary connection ka dhexeeya wada shaqaynta dila waa maxaa dhacaya wixii dhan hoos u dhacaya all hormones hoos u dhacaya uu soo daaya pituitary glandiga maxaa yeelay kor laga soo amray la soo daaya marka kor haddii calaaqadii la waayo waa istaagaya kulli hoos u dhacaya markii laga reebo prolactin wuu ziyaada waa uu ziyaada maxaa yeelay kor waxaa ka imaanaya amar ah joojin amarka joojinka la waayo marka waxaa waxaa dhacaya uu ziyaada inay fahantaan rajayna maalin roob kasoo mawduuca anta Chronic disease tuberculosis waxa laga yaabaa tuberculosis waxay saameynaysaa wataan kaalin oo ovary soo ovary wuxuu sameynaysaa inuu ku dhaco destruction yani tuberculosis-ka mammaska soo ayadana ku dhaco secondary aan ugu dhaco waxaa leenahay mammas viruska tuberculosis waxaa leenahay ovary ay wuxuu ku sameynaysaa damage marka waxaa leenahay soo diabetes mellitus renal disease liver disease waxaa leenahay wuxuu liver mas'uul ka yahay waxaa lagu sameeyaa estrogen waxaa lagu sameeyaa metabolism ka dhaco estrogen metabolism ka dhacayo marka estrogen metabolism marka meesha lagu burburina marka hadii liverka waxa xanuunsan yahay maxaa dhacayo ma dhacayo estrogen metabolism maxaa dhacaya marka estrogenka high waa marka estrogen high wuxuu sameeyaa negative feedback wuxuu ku sameeyaa mataqaana pituitary glandiga iyo hypothalamus waxa la shaqada joojiyo leeyahay estrogenka badan waxay negative feedback sameeyaa marka maxaa la soo deynaa gonadotropin hormone FSH yahay lama soo deynayo ovulation ma dhacayo maxaa yeelay liverkii ayaana shaqeynin estrogenka yaa la rabay inuu burburiyo metabolism wuxuu ka dhacay estrogenka wuxuu ka dhacay metabolismkiisa liverka burburiyo liverka ma shaqeynaa maxaa dhacay doctor liver doo shaqeyn maxaa dhacay doctore estrogen high waxana high markuu maxaa dhacayo negative feedback wuxuu leeyahay hypothalamus iyo pituitary waa mahadsantihiin negative feedback waxba niga maran khayr lahayn anaka isku filan estrogen uu badan yahay laakiin si caadi estrogen waxa laga hoos u dhaco yani soo maseek la dhacay bil kasto marna hoos u kaca marna kor u kaca marna estrogen markuu hoos u dago waxa la stimulation galena hypothalamus kan soo dayso gonadotropin hormone pituitary waxa uu soo daa FSH ovary lagu sameeyo ovulation kadibna soo daa estrogen marka high noqon negative feedback uu sameeyo joojina ma fahanta hadda uur dhacay sidoo kale wuxuu si ahaan ahaa inta uurka ku dhamaanayo estrogen waa high wuxuu joojina negative feedback inaan la sameeyo ovulation kale I think in fahanta meeshan Addison disease Cushing syndrome acromegaly waxa leenahay waa waxa ziyada hormoonada acromegaly waxa ziyada hormoonka of growth hormoonka iyo cortisonka iyo mataqaana growth hormoonka iyo cortisone iyo ninka la leeyahay aldosterone waxa leenahay yani badanaa waxa leenahay waxay ku shaqeeyaan cagsi u yihiin waxay ku yihiin cagsi of mataqaana cagsi waxay ku yihiin leenahay sex hormoneska yani ay cagsi ku yihiin waxay joojinayaan marka hadaan ku aragtaa Cushing syndrome waxa badan cortisone hormoonka markuu bato iyo growth hormoonka waxa leenahay waa sida prolactin kale waxay cadow ku yihiin leenahay yani mataqaana hooyada iyo cadow ku yihiin cortisonka iyo growth hormoonka waxa leenahay waxay mataqaana hoos u dhigayaan leenahay mataqaana ovulationka drugska ayni drug waxa leenahay saameynaya antidepressant oo saameynaya dopamine waxaana uu sameeyaa anemia malabsorption syndrome severe anemia ama malnutrition hada ma baqay maana bas sakarka laakiin badanaa severe anemia ama malnutrition badanaa waxay keenaan kaasoo primary amenorrhea secondary amenorrhea amenorrhea marka daan waxaas dhan si guud ah khariidada ku siinaa ma rabina xabad ku jira waxaan ku siinaa hadda khariidada ku fudan akhriska ay ku siinaa khariidada ku fudan akhriska Sheehan syndrome hadii waa tahan soo hadlayna si guud Sheehan syndrome waxa dhacay waa tahan dhahnay waxa dhacayo waa baan hypopituitarism yani shaqadii pituitary hoos u dhacayo maxaa yeelay due to necrosis waxaan necrosis ku dhaca oo dhiigga ka joogsana necrosis ku dhaca anterior pituitary gland anterior pituitary gland ayaa mataqaana necrosis ku dhaca markaas maxaa dhacayo maxaa sababa inuu dhaco necrosis waxa sababaya severe antepartum hemorrhage ama hooyada ku dhacay postpartum marka dib soo sheegay doctor yani waxa dhacayo hooyada antepartum hemorrhage ama severe postpartum hemorrhage dhacay dhiig badan ka baxay dhiig badan waxa dhacay
inuu pituitary gland uu ku dhaco necrosis dhiig-yari ee ku dhacdo dhiig badan uu gaari waayo kadibna uu necrosis u dhaco necrosiskaas marka wuxuu keenaa in mataqaanaa pituitary gland uu shaqadiisa u gabo noqdo waxa loo yaqaan pan hypopituitarism inuu shaqadiisa hoos u dhacdo magaca loo yaqaan xitaa waa Sheehan disease ama Sheehan syndrome loo wada wuxuu kula imaanaa waxa hoos dhacayo FSH iyo LH hoos u dhacayo sabab maxay gelinaysaa marka amenorrhea iyo infertility laana pituitary waxaa laga noo soo dhaco waxaan ka rabnaa pituitary gland khalaas uu noo soo dhaco FSH and LH FSH LH uu soo deeyo maxaa dhacay waxa hoos u dhacaya leenahay waxaa keenaysaa amenorrhea and infertility maxay ovulation ma dhacayo FSH waxay mas'uul ka tahay inuu dhaco ovulation ma dhicin maxaa dhacayo cycle dhamma uuna la qaadi ma sidoo kale waxaa leenahay pituitary gland muxuu soo dejin thyroid stimulating hormone thyroid stimulating hormone soo dhaco maxaa dhacay isaga waxa loo yaqaan secondary hypothyroidism marka maxay keenaysaa hypothyroidism waxay keenaysaa mataqaana yani secondary hypothyroidism waxay keenaysaa in prolactinka la ziyaadiyo waxaa leenahay waxay ziyaadinaysaa leenahay in prolactinka la ziyaadinayo markaas sidoo kale waxaa leenahay decrease of prolactin maxaa dhacay markii hore waxa ku dhacay failure of lactation waxyaaba hadhow hore markii prolactin noqoto waxyaaba lagu garaaca kamid ah inuu ku dhacay lactationki sidoo kale waxaa soo dhacay growth hormonekii ACTH yani hormoonka uu soo deynayay hypothalamus ku dham ayaa hoos u dhacay bil ikhtisaar warka dhan maxaa daawadiis marka maxay tahay Sheehan syndrome waxaa leedahay waxaa hoos dhacay hormoonka dhan replacement of thyroid hormoonka maqan waa la siinaa growth hormoonka la siinaa waxaa la siinaa FSH iyo LH ka la siinaa waxa ka maqan ayaa la siinaa marka maxaa waa treatment FSH iyo LH la siinaa cycle ka imaanayso TSH ka la siinaa ayadana sida mataqaana looga bixiyo hypothyroidism oo baxdo sidoo kale waxaan ayadana taas waxa ahaa marka Sheehan ka saameynay Sheehan syndrome wuxuu saameynaya naxna afartii mid keewa afartii saameynaya ka pituitary gland waxaan leenahay hypothalamus pituitary over uterus Sheehan iyo saameynaya waa pituitary gland ay number 2 Asherman syndrome waxaan leenahay Asherman syndrome waxaan leenahay asagana oo saameynaya Asherman syndrome waxa waaye waa uteruski ayaa waxa arki doona waxa ku dhacay arkayga Asherman syndrome af Soomaali ahaan waxa waaye wax isku dhigayo uterine cavity uterus isku dhigayo etiology maxaa sababo uterine operation kastoo dhici karo badanaa waxa uu caansan DNC dilatation and curettage Allah DNC halin waxa waaye ilmaha laga soo xaqayo waxa loo yaqaan magacaas DNC dilatation in uterus la furo dilatation loo sameeyo and curettage soo xaqasiin waxa curettage lagu sameeyo DNC dilatation and curettage in xunga laga soo xaqo ama an uterus mataqaana wax ku jira laga soo xaqayo waxa loo yaqaan curettage marka waxaan leenahay curettage wuxuu keeni karaa inuu dhaco waxa kale oo keeni waxa loo yaqaan myomectomy myomectomy waxa ay guulin uga maado markaan ka hadlayno fibroid waxa waa tuyo marka soo baxdo uteruska waxa waa penile fibroid marka waxa leenahay wuxuu kifaaya baro fibroid kana inaan ka bixiyo qalin marka fibroid lagu bixiyo waxa loo yaqaan myomectomy waxa waaye waxaan remove sameeyna fibroid ka remove sameeyna waxa loo yaqaan myomectomy sidoo kale waxaa leenahay manual removal of placenta yani sidoo kale haddaan hooyadan u isticmaal karo manual remove yani waxa isku dayna xoog ugu soo bixi placenta manual remove placenta idan waxay keenaysaa in waxay keenaysaa leenahay Asherman syndrome yani laba mid waa operation ama infection operation waxa uu caasan dilatation and curettage myomectomy maxaa wanaana waa markii laga soo bixinayo tumor loo yaqaan fibroid markii laga bixinayo uterus qalin loo yaqaan myomectomy fibroid marka bixinayo loo yaqaan myomectomy iyo manual remove placenta marka hore kadib placenta xoog lagu soo bixiyo manual gacana ula tagay manual remove of placenta infection waxa uu imsaanahay hooyada waxa ku dhac septic abortion ka soo qaadin septic ku dhac markuu sharaxay waa dib hor u saxus septic abortion ka kaalina leeyo ama shaqala hooyada waxay ka xaluqan berbral sepsis hooyada waxay ka xaluqan berbral sepsis markay uurka ay dhashay kadib waxa sepsis ku dhac loo yaqaan berbral sepsis tuberculosis iyo endometritis waxay sababaan infection ku dhac uterus inuu isku dhigo Asherman syndrome waxa la uterus ku dhigan wax ka soo baxaa mar qabqab waa clinical kulay ma waxay tahay wuxuu kulay maana amenorrhea clinical presentation soo soo gaabiya clinical presentation ay kulay maasa waxay leeyahay amenorrhea hypomenorrhea yani inay dhiig oo istaago ama inuu yaraado iyo infertility sama haday pregnant noqoto maxaa leenahay waxay ku soo dhamaanaysaa waxa loo yaqaan abortion habitual abortion ama recurrent abortion ama recurrent miscarriage ama preterm badan oo maqaad laakiin haday qaado oo preterm noqona ama recurrent abortion ma soo dhaca ama waxa loo yaqaan placenta previa haduu wuxuu ka dhaxlo placenta eccrita in placenta gudaha u gashay noqonaysa waa khatar laakiin badan waxaa waxay ku leeyahay infertility and amenorrhea how to diagnose Dr. Asherman syndrome waxaan ku diagnose gareynayna ina ogaano waqti ani of the etiology factors ka ogaana hadda kor malaga soo xaqay hadda kor fibroid malaga baxsho myomectomy lagu sameeyay waxaan ka ogaanaysa iyo examination limited to mobility of uterine sound alla waa arki doona birada dheer waa ولا uterine sound برات كده بسمهم ده uterine sound or process look like uterine
uterine sound وشاس بروا بردا دير واي waxa la gelinayaa uteruski marka ma galaayo qab uterus way xiran yahay uterine cervix ka raacay geli cervix ka gelina hoos ka marfajeena cervix ka gelina saas u geliso uterine cavity waa xiran ma galaayo treatment-ka marka waxa sameeyna adhesion kala furuna adhenolysis adhesion kala furuna hab kala sameeyna dilatation and curettage bira la gelina curettage wala dilatation wala waasicina wala furfura tartiib loo fura sama tartiib loo fura kadib waxa la sameeyna antibiotic la siinaa ama meesha wada fure adhesion ka baabiina saa waxa sameeyna dilatation and curettage kadib waxa sameeyna antibiotic على أنا مركز نصنع نيو أديشن شو نيو أديشن اللي بعدها مش عن ضاع حو كفر دالتين كك بننجل كده وفره حسنا مركز فوليك أسيد وحنا حكينا فوليك أسيد كأنت قال فوليك أسيد كتير كأنت سومر كنا يعني فوليك أسيد كأما كتير كأنت قال كينس وحكينا صار يوترس أم يوترين كافتي مش أكل أفر فتاة كده حكينا صار يوترين كافتي وحكوا شو بس صلاين يعني سما بالون أقول لك سما أفوف سب فرق على تون مال وقتها ماشي سو سكوري جمر لبعض لأنه ما له فروة وأنا عمرت كم سكوري marka inaan mataqaana wax kala dhex geliya oo san isku dhigeen ni faan doctor meesha isku dhigeen waa juqjuqay birangal geli waa furfuray hatta meesha markaan furfurmay meesha dhiig iyo xalaan marka loo isku dhigay marnamaad marka wax kala dhex geliya labada cavity waa cavity isku mar labaad isku soo dhigin waxa dhex gelina kadib dhex gelina isku soo dhigay mar labaad induce new endometrium sama waxaan sameeynaa new endometrium waxa ku sameeyaa qaabkii endometrium cusub loo sameeynaa waxa loo sameeynaa waxa siinaysa cyclic estrogen progesterone isku dareena hayda estrogen progesterone siinayna waxa sameeyay endometrium cusub sameeysmaayo waxa dhacay markaas ay marba cycle dhacay dhiiga soo imaanay sidoo markay clinical management qaabkii marka loo daaweynayo ama assessment loo sameeyo waxay tahay marka waxaan ku bilaabay initial assessment ama initial management ugu horreeya sameeyo maxay tahay ko waado itimin doctor ani wallahi dhiiga iga istaagay 5 bilood 6 bilood ee sabab number 2 waxa leena exclude pregnancy iska fogey exclude waxa lahaa inaan iska fogeyn ama aan ka saarno meesha marka waxaan direena waxa leena maamo koona soo sameeyo baaritaanka la yiraahdo HCG waraan nin ilmo joogay sayid ugu mar adiga soo sameey adiga naga deena cadeyskan oo diraysa waraan nin ma qaba xayto waxa sheegaysa HCG diraysa ama ninkii Sacuudi buu jiray Mareykan buu jiray oo laba sano ma iga leexay kulada hala dib malahan maamo aniga saan u qaracna anaga ay haway kasto oo dhiiggeeda ka maqan yahay secondary amenorrhea waxa rabnaa isku hubin inaysan uur lahayn marka hal maamo isdiji iso sabay HCG sama hadday positive noqoto خلاص ka falano min khitaan wada waxa la wala dhiig ka isha uur la ma kala saaxiyo hadii markuu negative noqdo maxaa if haduu negative noqdo waxaan gudbina khad step kala sama inaan ayadana u fiirno about premenopause symptom ka weydiina hada waxa laga yaabaa inay noqoto xilliga hadii barino premature ovarian failure inuu ovariga xilli hore dhamaan karo 39 40 jir 38 jir ugu dhamaan karo kuma ka dhamaan karo hada premature ovarian failure waxa laga yaabaa menopause noqoto ay ku noqoto 40 38 marka waxa leenahay waxa weydiinaysa calaamadihii of menopause flashing sama hot flash vaginal dryness sama waxa weydiinaysa waxa weydiinaysa calaamadihi menopause waxa weydiinaysa hooyada tag history waxa weydiinaysa oo hooyada inay weight change ku dhaco kale yani inay weight change ku dhaco waxa laga yaabaa soo ma taan leeyahay waxa weight change oo kale ama cuntada aad badan cunto ama cuntada badan ka yaraata weight ka hoos u dhaco waxa la dhahaa in drug isticmaal drugs qaar oo keeni kara soo ma inuu prolactin ziyaado ani medical disorders kordhi kar beer xanuun iyo ma jiro thyroid symptomski yani qanjir ma xalad thyroid qanjirka ma dhunta kaaga soo baxay wax daawo ma waxa la thyroid disease ka waxaan leenahay wuxuu keenaa amenorrhea soo ani medical disorder uu keeni karaa wadiinaysa ani medical ani jabay faan doctor waxa isku fiina laga waxaan bilaabana كونا أول كسكوبينو كدينا من البوز كعلامة من البوز كسكوبينو حاليا هو هذا من البوز كتبع أي صدق سيدة سنجيرة أمين كتر ما حكينا صدق سنة بحكي رأي كتر حاليا كنت جيت تامت برجع علامة إنه يودي أوفيس من البوز سبتم مسكا أوكي نمبر لبو كير أوت أني إكزامينيشن سو ما حكي في نسها بارتيكولارلي وحكي في نسها ويت كذا هايت كذا أني فيشل فيلز يعني أرق كذا ما تقلدان بريزنسي أو هرجيتيزم كما هو جرق أي أنا يشاربه وبوليسيستيك اوفيريان سندروم أكيد نقول شكله هذا هو بوليسيستيك اوفيريان سندروم also حنا كير اوت اوف بلفيك اكزامينشن هسمينا الساعه ده زمان كونتريبيوشن ايش كوين وحنا اسسمنت يوريسي ولا دكتور اسسمنت دي سمري هو جينا حنا تشيك وسمي اس اف اس دي ال اتش اري اف اس دي هل محوي شيء يعني انه بديت لغان شقينا ان كلا سوما اف اس دي هل هيك هادو هاي نقدو كله استروجين iyo hooseeyo meesha ay sheegaysaa inuu hooyada maxalanahay waxay qabtaan inay noqoto menopause أنا FSH كوا هاي لكن حاليا هاي وحنا بديت رجلا أوفرين شغالين نوع يعني أوفرين وحنا علينا استروجين وزنين وصودا عايم علينا واي من بوس برولاكتين دو هاي من سوينا علينا مرض أهو على سبب برولاكتينوما جتنا برولاكتين كأصغر برولاكتينيميا ها تستوستيرون أسكو فينا حاليا سما إنه حتى تسكلود مثلا إنه نورمال كيا ثيروكسين سما هنا ثيروك فينا
thyroxine T3 T4 fiirna saayada iska weyn in Soomaaliya thyroid qabin soo maxay thyroid disease wuxuu keenaa wax marka thyroid disease kana wuxuu inuu jirin baaritaan u dir balaqtin u dir FSH ilahay u dir saan u hubino inay menopause noqon in kale iyo ina balaqtin uu sareeyo in kale shaqal transvaginal ultrasound u sameey hadii jid ani polycystic ovarian disease hadii jid in kale soo kadib waxaan review the result wax dhib badan waxa la fiir waxaan wax soo raadina ana investigation aan diraayo ma wax iska dir ma qarashka geli lacag waan lacag ka dhamay ma lacag ka dhamay isla mar waa dhaqtar xariif oo ilaa cilmi siiyay oo step by step hada waxa laga yaabaa boqol step oo dirto already laga uur noqo ay leedahay markuu uurka waa baaritaan badan ma baaritaan aad lacag soo yartaa waa shaka bilow hab soo kala video kala bilow ma fahan investigation oo dirayb xataa ana ko waxaan ana waa iskuulada waxaan sameeynaa inaysan jirin pregnant maxaa diraysaa BTHCG hooy cali soo sameey BTHCG khayr la ku sii soo kadib xalada ay fiiri prolactin levelki ha kadib xalada ay fiirisaa TSH T3 T4 sama thyroid inuu qofkan thyroid disease qabay iyo laano thyroid disease wuxuu keenaa naxna hypothyroid wuxuu keenaa infertility aan wuxuu keenaa wuxuu keenaa amenorrhea hadii marka ay thyroid wax ka qaldin asaas ay doonaa daawada waxa weyn inaad daaweyso haduu prolactin sarreey prolactin daaway mifat mar walba treatment of secondary amenorrhea waa according the cause sababta daawada marka sababta daawada la helaa waxa loo qaan progesterone challenge test sameynaa progesterone siinana dhiiga imaana ama ma imaanayo haduu dhiig imaan minis maxaa waaye minis وإذا حنا أوفري جدا حنا هو في عيهاي استروجين برضو حالنا هاي بروجسترون ملها يعني استروجين وسيد لكن بروجسترون ملها مين حالنا هذا حالنا هاي وحكم قرنه كوربس ليوتيم يعني حالنا هذا حكم قرن اوفيليشن كم قرن ان اوفيليشن واحد يعني وقوع قرن لو يقان بوليسيستيك ان اوفيريان سندروم سمع بوليسيستيك اوفيريان سندروم يعني هذا مع سي بروجسترون تنسي بروجسترون تنسي دي إيمان أو ما إيمان هدي وديجي مع الدكتور هو شنفوده حالنا هذا استروجين ولا هاي لكن حكم قرن هذا بروجسترون مين علينا وان اوفيليشن مستر وحي قبل بوليسيستيك اوفيريان سندروم سو ان اوفيليشن يا مقن او كرب زي تيم كي بتخال عمش كما قني فان دكتور هدي او سمبريدي كايمان حاسم مثلا دو سمبريدي ايمانين يعني ستيب كخخد waxa leenahay hal siiyo waxaan isku dar leenahay co estrogen and progesterone combination siinaysa markaan combination sameeyo marka progesterone misan si haduu dhiig imaado means progesterone ka maqan haduu dhiig imaado waxaan isku dar estrogen and progesterone ayna waxaan noqonaa positive ama negative haduu positive noqdo means waxaan leenahay hooyadan waxa jira ovarian failure ovarian ma shaqeynaa haduu negative noqdo ovarian imaado means waxaan leenahay hooyadan waxaan leenahay waxa ka baqan Soomaaliya mataqaana Turner syndrome ovarian ma shaqeynaa waxaan leenahay already waxa jira leenahay Turner syndrome Turner syndrome ama xadii karna yani ko progesterone na udir progesterone haduu positive noqdo means maxaa waaye yani oo dhiig imaado progesterone asiyo means hada xakam progesterone bisa ka maqan haduu dhiig imaado waayna waxa leenahay waxa isku darayna combination haduu dhiig imaado waxa leenahay waxa waaye means waxa leenahay ovarian waa mushkilad ka jirta haduu laakiin dhiig imaado waxa leenahay wuxuu mushkilad jirta leenahay uterus la socda wakana wili waxaan si wada dartaan isku dar kana estrogen progesterone isku daraysa combine 3 weeks in sababta ka sheegnay mi faanta tii hadda koro waay tan waxaan on progesterone si progesterone kan siiyo haduu mataqaan imaado positive waxa leenahay already hada waa an ovulation jiro polycystic ovarian syndrome haduu waayo markuu waayo soo waa waxa isku dar labada hadii progesterone isku dar hadii uu dhiig waayo wili waxaan uterus ka waxa dhib ka jira waa ashar syndrome jiro ama uterus isku dhigaysan waxa soo baxay malaha haduu bleeding imaado means hooyada estrogen malaha يعني problem حاجه لنا hypothalamo pituitary يعني هو ده عقل علينا hypothalamo pituitary يعني ovary iyo wixii ma kor ma shaqeynaa lana estrogen progesterone ka maqan ba ifan doctor ana waxa lana estrogen progesterone iyo hypothalamo pituitary waxa ka kor ba shaqeyn ma taleen laakiin duliga ma waa meeshii mid ku dhigta lana uterus waxaan fiirnaa serum FSH LH hadayna wada FSH ay high taamiin waxa ovarian failure already hada menopause noqdo ovarian failure ajir ifan doctor ovarian failure min soo menopause noqdo oo kuma wada maale haduu FSH oo hooseena xalana min waxa lana waxa jiro hypothalamo pituitary failure ajira asana sama ama hypothalamo pituitary ayaa aan shaqeynayno FSH soo deynay sidoo kale waxaan go'doomay recent test aan fiirin haduu positive yahay haduu negative kadib waxaan fiirnaa CT and MRI saan u fiirino inay jirto prolactin-ki sama inuu tumor ku jirto pituitary gland-gi aan iyo hypothalamo-ski investigation iska wax dhib badan ma aha management maxaa lana ku jira waxaan daawanaa si guud anemia qabta anemia ka sax malnutrition qabta malnutrition ka daawe weight keeda weyn weight ka rid sama reduction of weight haday obese tahay sama haday hooyada stress high elevate yani sama yani waxa waaye palliative sama in mataqaana hooyada stress laga dejiyo daawada dejinaysa hyperprolactinemia haday jirto waxaan siinaa dopamine agonist dopamine siinaa sama sida bromocriptine asina daawo
sida daawada bromocriptine waxaa waa dopamine agonist dopamine kana siina si u joojiso prolactin hoos u dhigto miyaa socota tigta hadduu thyroid uu qaldan yahay the correction of the thyroid dysfunction soo ma thyroidka ka daawey ana cudurka qaba laga daaweyna kadibna waxaan siinayna hormoonka hadda sheegayna waxaan siinaysa hormone replacement therapy soo ma haddii mataqaanaa oo imaawaayo markii aan siiyo estrogen progesterone oo dhiig imaado insaxayna hooyadan waxaan ka maqaanaynahay premature ovarian failure waa leedahay premature ovarian failure soo ma yani premature ovarian failure waa هذا برمجول أوفيريان فيلر تمام حمسنا ما حلوه قانا سيكليك وحسنا بروجسترون 7 to 10 days سما يعني أما حسنا بشي بعد كسينا طبعا تضرب ده حسنا سا وحنا أما كومباين حسنا سما سا أوصل من هيدا عن أوصل من السايكل سما ما دام أوفري أشتغل برمجول أوفيريان فيلر وياه اشتغل حسنا induction of ovulation هذا تهي polycystic وتهي خلينا polycystic ovarian disease أما ovarian syndrome كويا وحسنا induction وأنا ناسين وكمية لو صاروا أهل كلمافين ستريب كلمافين ده تهي هيدا مثلا ovulation oo jirin waatan an ovulation progesterone kan siyan kala waxa arkayna hada cycle imaanayna subxaan wa an ovulation hada ma an ovulation jirin waa saxina nifaante dadka tani heelay hadii aan markan progesterone si haduu dhiig imaado waxa ka maqan progesterone means waxa leena waxa an ovulation waa polycystic disease daawada marka polycystic maxay tahay inaan u sameeyo induction inaan ka soo saaro inaan ovariga aan ka soo saaro intaas ayaan waxaan rajaynaa fahanteen managementiga secondary amenorrhea aan assessmentiga qaabkay u baaraysaa qaabka daawada mar waxa daawada sababta daaweynaysaa waxaan rajaynaynaa fahanteen intaan kusoo dhaweynayna amenorrhea billahi tawfiiq